waxaa maanta si rasmi ah looga furay magaalada Burco tababar socon doona muddo 10 maalmood isla markaasina ay hagayso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland. Tababarkan ujeedadiisu ay tayeynta kormeerka wasaaradda waxbarashada ee gobolada iyo kor u qaadida tayada waxbarashada ardayda iyo barayaasha dugsiyada. Waxaana tababarkan ka qayb qaadanaya muddada uu socdo kormeerada wasaaradda waxbarashada ee gobolada Togdheer, Saaxil, Sanaag, Sool, Buuhoodle iyo gobolka Daadmareed. Furitaanka tababarkan iyo waxa goorantiba ka hadlay agaasimaha waaxda kormeerka guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Xasan Cabdillaahi Rooble. Waxaana ku warbixiyay ahmiyadaha tababarkan uu leeyahay kormeerayaasha goboladan ay ka faa'iideysanayaan. Waxaan uga jeedaa inaan kor ugu qaadno tayada waxbarashada ee ardayda iyo maamulkii dugsiyada ama maamulkii waxbarashada. Waxaan kor ugu qaadayno doonayna inaan standard u sameeyno inuu dhulka ka dhaqaaqo u gaaro dabaqa ugu sareeya koob iyo tobnaad ama 12. waxaan soo waday muddo systemkii waxbarashada aynu ku dejin lahayn si carruurteenu aanay u noqon kuwo ku luma sida ka dhacda dalalka dagaaladu ka dhacda inaanay istaagtaagin dariiqada aanay ku lumin aynu ku xareyno meel si ay aqoon u yeeshaan oo aqoontaasi dabeed ay uga dabarto waxyaabaha xun oo dhan. iminkana waxaynu haleelnay inaynu tayadii waxbarashada hagaajino. marka intaasoo kormeeraan isugu yeedho waxaan ugu talagalay inaan sameyno weerar bilaan sanad kasta. weerar bilaankaasoo dugsiyadii gobolladoo dhan mid lagu soo wada maro la ogaado xaaladoodu siday tahay iyo tayadooda waxbarashada tahay iyo manhajkii waxay dhamaysteen iyo waxa ka dhiman iyo agab waxaanay haysan iyo waxa haystaan. waxaan ugu talagalay 2 buug baa halka ku baranaya. buug wuxuu ka sheekeynayaa wixii iskuulka yaalla inay yaallaan loogu talagalay. waxaa halkan aanu ku qabanaynaa dabadeed intaasoo waayo aragoo kormeeraha oo muddo soo shaqaynaysa oo macalinimo ku soo shaqayso maamulo ku soo shaqayso maamul ku-xigeen ku soo shaqayso kormeero ku soo shaqayso guddoomiyayaal gobol qaar ku soo shaqeeya. waxaan doonaynaa aqoontoodii intii aanu anagu fikradii ereydaynu keena ay ku daraan si ay u noqoto wax dhaxalgala. gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sool Maxamed Bisille oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay faa'iidada ka maamul waxbarasho ahaan ay ka helayaan tababarkan ay hagayso wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland. waxaana uu yiri waxaan aad u soo dhaweynayaa dhammaan kormeerayaasha halkan isugu yimid ee loo qabanayo seminaarkaas oo socon doona 10 maalmood socon doona laguna barayo qaabkii iyo hawshii awalba hore u hayeen in loo sii fududeeyo ama loo qorshahoodii loo jejebiyo si ay u noqdaan dad wax qaban kara ama meesha ay u socdaan garan kara meesha ay ka dhaqayaan garan kara. waxaanu ku dadaalaynaa haddii ilaahay haddaan nahay guddoomiyeyaasha inaanu kormeerayaasha wax allaale wixii hawshooda fududeyn kara inaanu u fududeyno. tababarkan oo socon doona muddo 10 maalmood ayaa tahay ahmiyadaha ugu waaweyn ee laga leeyahay kor u qaadida tayada waxbarashada ardayda, kormeerayaasha iyo barayaasha dugsiyada dalka Soomaaliland. waa Khalid Bakeele, shabakada caalamiga ee Ictiraaf News, Burco.